madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Firish madaxweyne ku-xigeenka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka guddiga farsamada ka baaraandegidda qaabab doorasho gudoomiyahooda iyo guddigaba dhammaan marti sharafta qaybahooda kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadan qaaliga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa maalin la wada sugayay ummadda Soomaaliyeed sugaysay waa maalin weyn oo lagu wada taabayay sharaf bay noo tahay inay maantay maalintaani soo gaartay guul iyadoo ay fadhiso madaxdii qaranka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya u horeeyo sharaf bay u tahay ummadda Soomaaliyeed sharaf bay u tahay dadka reer Galmudug walaalayaal mudanayaal iyo barwooyin waxaad ogtihiin inay ahayd madal iyo ballan 15 bisha August halka ay isugu yimaado iyadoo looga tashanayo xannaan doorasho iyo qaab doorasho oo dalku doorasho ku galo waa la yimid waa laga soo qayb galay walaalo laga maqnaaday ayaa jire runtii waa la hadalnay waa doonnay dadaal kastana waa ku bixinay geed dheer iyo geed gacbanna waa u fuulnay walaalaheen inay halka ka soo xaadiraan sidii ballantuba ahayd ma noqon taasi ma noqon sidaas waxaad ogtihiin maanta inay tahay maalintii 7aad ee halka uu ka socdo shirkan oo runtii la dhihi karo waa waqti waafi ah oo ku filan inay walaalahana aan ugu yeerno taladii loo baahnaa lagu gaaro intaa kadib waxaa la gudagalay taladii iyo muhiimaddii shirkan weyn ee taariikhiga ahi lahaa sidaan horeba u sheegnay waxaana soo baxay oo la gaaray hannaan doorasho oo dalku doorasho ku galo oo runtii dhinac walba laga eegay oo aan dhinacna u xaglinayn oo ummadda Soomaaliyeed inay doorasho ku gasho waqtigeedii ku dhacda ku qalma waxaa laga fogaaday qaabab dhaliil laga qabi jiray waxaa laga yimid oo laga soo degay qaab la islahaa lama gaari karo waxaa la keenay oo la isugu yimid meesha iyo qaabka aad aragteen oo runtii aan dhihi karno waxaa guddigii ka baaraandegiduna ay aad iyo aad u falanqeeyeen madaxdii qarankuna falanqaysay meeshii Soomaali maanta waqtigeeda doorasho ku dhacda ay ku gelinay ayaa la soo dhigay walaalayaal waxaan halkaa inaan ka caddeeyo
waxaan sugaynaa oonan ka maalmin oon taladooda iyo soo dhaweynayna arrintooda walaalaha naga maqan dalku doorasho u socday doorashaa loo rabay waqtigeeda ku dhacda aragtidiina aad ka dhiiban kartaan doorasho sidaan sheegnay maanta dalka waddanka doorasho ku geli karo nalala qaadan karo Soomaali lagu taageeri karo ayaa la soo dhig la isla gaaray waxaan soo dhaweynaynaa talada walaalaha waxaan soo dhaweynaynaa tilmaanta walaalaha waxaan soo dhaweynaynaa mar walba oon diyaar u nahay annagoo qadarin iyo sharaf iyo walaalnimo hayno shirka isaga ah natiijadii iyo maanta mustaqbalkii muddo uga fadhisay waa ka soo baxday oo ahayd in waddanku helo qaab iyo hanaan doorasho oo sharfan oo aan lahayn dhinac iyo meel dhalin laga geliyo sida aan u aragno ciddii haysana waa soo dhaweynayna mudanayaal iyo marwooyin waxaa jiray shaki la gelin jiray ama ummadda Soomaaliyeed loo sheegi jiray doorashada iyo waqtigeeda iyo sida loo rabo halkaas maanta waxay tahay hor xanay ku har waxaan aad u bogaadinayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug ku bogaadinaya dacaayadihii la isku dayay in lagu maran habaabiyo shirkan ama lagu shaki geliyo waddanka Soomaaliyeed sidii oo abaabula oo aan dhihi karno waxa waday kooxo ujeeddo xor ah oo mar kasta ummadda Soomaaliyeed ceeb ku ah sida loo arkay waxaa dhaqan dadka qaarka u noqotay wax walba wanaagsan inay ceeb u yeelaan ama ay isiraadaan waxa la qaban karin qofkii qaban kara ka daba wax u ceeb u yeelay taasna ummadda Soomaaliyeed iyo reer galmudugba way ogaadeen namana shaki geli karaan namana duwi karaan runtii waxaan dhihi karnaa waa laga guulaystay waana ka guulaysanaynaa cid kastoo isku dayda inay ummadda Soomaaliyeed danaheeda iyo maslaxadeeda iyo sharafkeeda dhaawacdo hadday shakhsi tahay ay maaragtay ku talagaleen iyo hadday tahay si guud inay danaha ummadda u dhibaan waxaana leenahay walaalayaal waa idiin nasteexaynaynaa waddada saxda ah iyo sida wanaagsan u fakara mar walba qofba qofku ka xumaan badan yahay Soomaaliya ma baahna waxay u baahan tahay qofku ka wanaag badan yahay waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahadceliyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba siday shirkan u garab taagnaayeen talo iyo taageero dhinac walba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya beesha caalamka sida ay ula duubnaayeen gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee maanta go'aankoodii halkan ka dhacay siday u doonayeen inay Soomaalidu hore u socoto doorasho xor iyo xalaal gasho goolna ku gaarto waxaan leenahay walaalayaal qof kasta Soomaaliyeed hadduu yahay mas'uuliyiinta aan sida gaarka u tilmaanay iyo hadduu yahay mas'uul kasta Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa taladiisa tilmaantiisa ku fadhiisa wanaagga ka turjumaysa maslaxada Soomaaliyeed aan lagu dhisay xumaan iyo marin habaabin iyo in dib loo celiyo ummadda Soomaaliyeed aad baan soo dhaweynaynaa
waxaan leenahay hanaan doorasho dalku aaday dalku doorasho galay doorashadaas wixii taladeeda iyo wanaageeda lagu daro qof walba wanaagiisa ha ku daro ha ku soo biiriyo wixii aan la soco karin ama wanaag ahayna gadaal ha loo dhigto doorashadaani ma ahan doorasho ay dowladda federaalka ahi dana ku leedahay doorasho dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dana ku leeyihiin ama ay awood gaara ku leeyihiin ma ahan doorasho cidna ka xaglinaysa cidna u xaglinaysa waxaa la yidhaahdaa wada guulaysta magaceeda qof walba oo Soomaaliyeed wada guulaysta u kaalay wada guulaysta ku soo biir wada guulaysta dhinacaaga ka gal ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay guulaysta doorasho wanaagsan oo xor iyo xalaal ah oo sharfan ayaa noo ballana meel aad joogtaanba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu